أما الله عليكم أصحاب الشرف iyo qiimaha u saaxiibka wararkii ciyaaraha xalay waxaan isdul taagi doonaa xasuuqii ay geysatay kooxda Liverpool iyo bareejadii kooxda Manchester United iyo Atletico Madrid ciyaaraha caawa ciyaaraya iyo maxaa la dhahaa wararkii suuqyada waxa laga yiri maanta laga qorqoray haddaba kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa xalay waxay xasuuq u geysatay kooxda Leeds United iyadoo ku xasuuqday ama ku xaaqday 6-0 kaasoo ay u soo dhawaadeen kooxda hoggaanka haysta ee Manchester City oo ay kaliya ka dambeeyaan 3 dhibcood haddaba Liverpool waxa u saaciday laacibadooda Mohamed Salah ayaa xalay wuxuu dhaliyay 2 rigoore sidoo kale Mane ayaa isaguna qaybtii labaad 2 gool dhaliyay halka labada gool ee kale ay kala dhaliyeen labada daafac Matip iyo Van Dijk ina u ahayd kooxda Liverpool guul aad u weyn maadaama ay u soo dhawaadeen kooxda Man City oo hoggaanka ku haysta 3 dhibcood oo kaliya hadeer Liverpool waa koox isku dheelitiran taasoo ay sanadka maanta ay u haystaan chance weyn inay kula tartamaan kooxda Man City oo hoggaanka haysta kooxdan Globe uu hogaamiyo waa koox aan inaba caadi ahayn oo aan waxba laga qaban karin waa koox isu dhameystiran oo dheelitiran waa koox dhan kastaba ka dhameystiran haday noqoto xagga daafaca haday noqoto goalkeeperka haday noqoto weerarka iyo dhaxda waa koox dhan kastaba aad ka eegtid kooxda Liverpool waa koox dhameystiran waxayna xalay ku barbarteen oo dhaheen sida kubadda loo ciyaaro barta kooxda Leeds United Liverpool xalay goolal inta ka badan way ku badin karayeen ma ay fursado fara badan iska khasaariyeen kooxda Liverpool sidoo kale kooxda Leeds United daqiiqadihii ugu horeeyay ciyaarta ilaa 10 daqiiqo ugu horeysay aad bay u dadaalayeen mar waxa la arkay iyagoo daafaca Liverpool iyo goalkeeperku ay isku khaldeen kubad kaasoo sigatay in laga dhaliyeen xataa offside ayuu ka noqday laakiin ciyaarta intii hore way dadaalayeen oo daqiiqadihii ugu horeeyay ciyaarta laakiin kooxdan Liverpool waa kooxan u nixin kooxaha yaryar inta badanna waxay u geystaan xasuuq aad u fara badan oo maxaa la dhahaa way xasuuqaan marka kooxdan Liverpool waa kooxda kaliya ee sanadkan maanta maxaa la dhahaa kula tartami karaysa kooxda Manchester City sidoo kale xataa UEFA Champions League waa kooxda kaliya aan ilaa iyo hadda aan laga badin waa kooxda loo saadaaliyay sidoo kale UEFA Champions League inay sanadka qaadi karayaan maadaama marka laga soo tago Man City marka kooxdan Liverpool waa koox aan waxba laga qaban karaynin xilli ciyaareedkan kooxda aan isleeyahay sanadka maanta ama championka ama Premier League way qaadi karaysaa maadaama say u ciyaarayso iyo say iskugu xidhan tahay aan aragno kooxdan Liverpool dama Premier League lagu xisaabtami karayno waa hal mar oo kaliya lagu qabto marka Man City horaan u sheegay waa hal chance oo la qabto oo Liverpoolna ka faa'iideysato sidiina way dhacday marka caawa 3 dhibcood oo kaliya ayay ka dambeeyaan kooxda hoggaanka haysta ee Man City marka Liverpool kooxda aan waxba laga qaban karayn waxaad u fiirsanaysaa hadeer hoggaanka gool dhalinta waxa haya Mohamed Salah waxa ku xiga Mane Diogo Jota xagga caawinta iyaga ayaa ugu sareeyo ciyaartoyda Liverpool oo dhamaantood waa ciyaartoyda ugu fiican hadeer Premier League haday noqoto xagga caawinta iyo haday noqoto xagga gool dhalintaba marka kooxda Liverpool waa koox isku dhameystiran sanadka maantana koob la'aan dhici mayso sida anigu aan aaminsanahay ama ay la muuqato Manchester United xalay waxay ka soo badbaaday gool darro ka soo gaaray lahayd Atletico Madrid waxaana badbaadiyay cunugooda Alanga kaasoo maxaa la dhahaa sameeyay badbaado aan caadi ahayn kadib markii bedel lagu soo galiyay ciyaarta Manchester United oo ku baxsata Chicharito oo bedel markuu ku keeni jiray ninkii Ferguson cunugaas hadeer wuxuu noqday Chicharitaha cusub ee kooxda Manchester United kaasoo markasta bedel lagu keena kooxdiisa ama badbaadiya ama bareejo u keena ama guul u keena marka xalay kooxda Manchester United iyo Atletico Madrid waxay soo bandhigtay ciyaar haafkii hore ciyaar aad u sareysa oo maxaa la dhahaa kubadaha inta badan iyaga haysto dhexda way ka haysteen kooxda Manchester United dara siday kubadda u haysteen ugama ay faa'iideysan kooxda Atletico Madrid kale kooxda Manchester United maxaa la dhahaa markii dambe ayay bahasha fahmeen oo markii dambe markii bedel uu sameeyay oo macalinkoodu uu akhriyay kubadda meesha laga haysta inay tahay dhaxda weerar iyo in ciyaartiisu ay u baahan tahay weerar cusub iyo dhig cusub uu ka faa'iideystay wuxuuna soo galiyay Elenga daha ciyaarta waxba ka tari waayo wiilkan yare Jojo Phillips uu xalay isbaray isaga iyo Bruno oo yiri aniga ma taqaanay waxaan ahay mustaqbalka heer Portugal u soo kacay ee ku bedeli doona Ronaldo u dhaliyay kooxdiisa hogaankana u dhiibay gool u dhaliyay
taasna waxay kusoo dhammaatay 1-1 kooxoodba sanadka waxay ku jiraan xaalad xun oo aan fiicnayn. kooxda Manchester United waynu ognahay siday tahay iyadana sidoo kale Atletico Madrid xilli ciyaareedkan aad bay iyaduna u liidataa oo ma fiicna oo ciyaarihii lagu yaqaanay ma soo bandhigto sidii loo ogaa ay u ciyaari jireen. Atletico Madrid ay u dhibka badnaayeen sanadka maanta ma aha, marka labada kooxoodba waxay ku jiraan xaalad aan fiicnayn marka loo eego xilli ciyaareedkan. uu dhaliyay waxay ahayd goolkiisii ugu horreeyay uu ka dhaliyo koox Ingiriisa, sidoo kale goolkii uu dhaliyay cunuga da'da yar ee heer Manchester United Elenga goolkii 500aad ee kooxda Manchester United ay ka dhaliso European Cup iyo UEFA Champions League, waxaana ka sarreeya kooxaha kale ah Real Madrid oo haysata 1001 iyo sidoo kale Bayern Munich oo iyaduna haysata 760, sidoo kale Barcelona ayaa iyaduna haysata 624 gool. Manchester United ayaa ah kooxda kaliya Ingiriiska ka socotay iyaduna gaadhay 500 ee gool. Bruno Fernandes ayaa isaguna noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay ee taariikhda UEFA Champions League caawin ka sameeyay 6 kulan oo isku xig oo u ciyaaraya koox Ingiriis ah, wuxuuna jabiyay rikoorkii halyeegii David Beckham kala sameeyay markuu Manchester United u ciyaarayay sanadihii 1998. waxaa xalay iyaguna ciyaaray kooxaha Benfica iyo Ajax kuwaasoo maxaa la dhahaa iyaguna isla dhaaf waayay barbaro 2-2 ah. suuqa kale iibsigana waxaa ka mid ah kooxda Manchester United ayaa ku rajo weyn inay la soo saxeexdo xidiga dhexda uga ciyaara kooxda West Ham Rice, kaasoo maxaa la dhahaa ay doonayaan inay ku xoojiyaan dhexdooda. sidoo kale weeraryahanka Tottenham Harry Kane ayay doonayaan. sidoo kale kooxaha Chelsea iyo PSG ayaa hogaaminaya tartanka loogu jiro ciyaaryahanka Barcelona ee Dembele heshiiskiisu u dhacayo xilli ciyaareedkan soo socda. kooxda Barcelona ayaa heshiis 2 sano u soo bandhigtay kabtanka Chelsea Azpilicueta kaasoo ay qadaraaskiisu u dhacayo xilli ciyaareedkan soo socda. ciyaaryahanka PSG Dembele ayaa isaguna wuxuu qaadacay isku daygii ugu dambeysay kooxda PSG isku dayeysay inay ku qanciso ciyaaryahankan inuu sii joogo PSG, kaasoo uu diiday inuu u kordhiyo wax heshiisa. ciyaaryahankan ayaa haddaba waxaa baacsanayay kooxda Real Madrid oo xagaagii horena isku dayday inay kula soo wareegto 180 milyan oo euro, laakiin ay diiday kooxda PSG. haddaba ciyaaryahankan ayaa haddaba wuxuu hadda chance weyn u haystaa inuu ku biiro kooxda Real Madrid ama Barcelona iyaduna doonaysay. waxaa ciyaaraya kooxda Arsenal iyo Wolves. Arsenal ayaa doonaysa inay markeedii labaad oo 2 bilood gudahooda ay ka badiso kooxda Wolves. sidoo kale kooxda Wolves ayaa iyaduna indhaha waxay ku haystaa inay maxaa la dhahaa kaalinta afraad ee iyaduna soo gasho oo Arsenal iyo Man United iyo Tottenham iyo West Ham iyo dhammaantooda ay u tartamayaan inay kaalinta afraad ay muuqdaan xilli ciyaareedkan oo ay rajo ka qabaan inay u soo baxaan UEFA Champions League. wararkii ciyaaraha intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa.